بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا مدة الصومالية ميل كasta caalamka joogaan. Waxaan aad iyo aad uga xumahay maanta nimankii xildhibaanada ahaa ee xasan gurguurta kula shiray magaalada muqdisho ee laga sugayay inay ummadda isbedel iyo horumar u keenaan oo xasan sheekh maxamuud xasan gurguurta oo looga yahay dadka dhibaatada iyo lugooyada uu u geystay looga yahay intay maanta soo hortaageen inay aadaan ku dooranayna ku codaynayna. waxaan leeyahay xildhibaanadaas wixii laga filayay umaydan kicin uma qalantaan xilka uma qalantaan xilkaana nooma hayn doontaan insha allahu tacaala ilaahay iidankiis haddaad xasan sheekh doorataan wixii idiga soo horbaxaaba way dili doonaan hadday shacabka soomaaliyeed tahay hadday nimanka afka duwan ee al-shabaab tahay haddii masiibo kaloo ilaahay idii soo dura tahay ilaahay waxaanu idiga baraynay haddaan shacabka soomaaliyeed nahay dhibaata nagu haystaan xasan sheekh maxamed dhibaata nagu haya nidaamka duma jidil dhibaato ummadda soomaaliyeed ku haya lugooyi u geystay wax horumara oo laga sugay 4 sano oo qasaare baan soo maray ma awoodno maanta 4 sano oo kale oo qasaare ma awoodno oo qasaare ma awoodno waxay noqonaysaa haddii xasan sheekh la soo celiyo rajabeelkii soomaaliyeed ay noqonaysaa marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa haddaad xasan sheekh doorataan waa in ilaahay inkaar idigu ridaa oo balaayo alla idin soo diraa oo la isku keen qarxiyaa oo aad marataan ilaahay saasaan weydiisanayna bal ilaahay ma idigu dhaariya xasan sheekh muxuu inoo sheegay xasan gurguurta muxuu sheegayaa madaxweyne soomaaliyeed ma istaahilo madaxweyne maamul goboleed ma istaahilo gudoomiyaha gobolka banaadir ma istaahilo marka insha allah ilaahay naguma soo celiyo nimankaasuna ma aha niman ummadda soomaaliyeed ka naxaya waa caloosha u shaqaystayaal waa danaystayaal shacabka soomaaliyeed ee muqdisho joogana waxaan ugu baaqaynaa inay ku mudaharaadaan oo qalinka iska taagaan taaniskaas walaalayaalow maanta taanis baad haysataan taaniska ha laga faa'iidaysto shacabka muqdisho jooga ay soo taageen xildhibaanada hadday xasan sheekh iyo wixii la mida xal weysta hadday doortaan dhammaantood hadlaye insha allah wanaag baan ka rajaynaynaa isbedel baan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed waa baabaaday abaaro xasan sheekh maxamuud 300 kun buu doonaya inuu ku iibsado codkii walba 300 kun oo doolar buu ku iibsanaya ummadda soomaaliyeed gaajo iyo haraad u maranaya waa damir la'aan ilaahay naguma soo celiyo waa damir la'aan waa muxishoode shacabka soomaaliyeed muqdisho degan waxaan leenahay